khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele uu jeediyay ciid al-kabiir oo ku beegnay taariikhdu markay ahayd 16 November 2010 iyo jawaabta ku saabsan khudbadiisa oo uu soo jeediyay afhayeenka isbahaysiga isbeddelka iyo horumarka Djibouti mudane Xuseen Cabdiraxmaan Jaamac Andhoole. doorashooyinka madaxnimada ee soo dhow waxa dadkan mucaaradkii ay oranayaan imikaba sii qayliyayaan waxaan nidhi war waqtigeeda aan sugnoba dooni maayo imika inaan arrinkeeda si ballaaran u galo laakiin laba kelmadood uma oranay waxa dimuqraadiyadeenu ay codsanaysaa inuu dadweynuhu xaq u leeyahay in uu helo rag iyo dumar midkay doonaan ha ahaadaane dhowr ah oo uu kala dooran karo barnaamij qoran oo waxa imika socday wax jira maaha aniga waxa soo saaraya barnaamij oranaya inuu la yimaado qof waliba kolka mucaaradka waxaan ka leenahay soo baxa ma suuroobi karto inay dad yiraahdaan hebel hadii uu yimaado anagu doorasho ma galayno waxa aqli maaha raganimo maaha siyaasad maaha dadkana waxay xaq u leeyihiin inay helaan dad dhowr ah oo ay kala dooran karaan waxaan rajaynaynaa in la helo doorashada soo socota rag la kala dooran karo oo nin waliba kartidiisa dadkan uu hor joogo ee wadankiisa uu ku tala galo maaha shisheeye maaha safaarado qabiilo maaha qabiilo qof madaxweyne kama dhigi karto been weyn qabiilo qurahatay nin madaxweyne kama dhigi karto maxay yeelay dalka qabiilo qurahati ma leh waa ballamaynaayo waqtigeeda iyaan ballami doonaa anigu barnaamijkeygana waa soo diyaarin doonaa waa sheegi doonaa si cadna waan u sheegi doonaa السلام عليكم عيد مبارك ما أنت موقف كانوا كهضلنا وحوي جواب أنو سين إنه مدحوينها إسماعيل عمر جيلي أو كهضلي يقود بدي عيدة وإسقوا شيء إنه مرصد دحات كنا قلنا يوم مدحتوين لماذا إسقوا مرة ضمان كل شيء إن معارض أي كبقيان إن يصور عن إلا ترتمان هذا بوحن أمد أوجيسيننا إسقوا إنه يهي ننكي كدول طلاب صديق ديمقراطي لماذا أو ما أنت مرصد دحات كنا قلنا مركا وحوي ديمقراطي بماها نين كدول طلاب صديق ديمقراطي لماذا ومرة بدوني كسو نقطة إسقوا حيرنا وأجلين أمبا وفرين إنه مرصد دحات كسو نقطة marka labaad macaaridka uu leeyahay ka soo qayb gala waa macaaridu nin kastaba geed ku xidhay waa macaaridu nin kastaba xukumay sidee doonaysan rag xukuman inay ka soo dhaadhacaan Djibouti ay ka qayb galaan siyaasadda amba ay tartamaan marka waxa leenahay ummadda been ha u sheegin marka ugu horeysa hadii aad nin dimuqraadiya tahay adigu iskaga tag powerka oo nin kale soo dhig meesha oo lala tartami karo laakiin adigu xaq uma lihid maanta mar saddexaad inaad ku soo noqotid macaaradkuna waa diyaar hadii aad adigu shuruudada ka soo baxdid la sheegayo amba shuruudada u banaan nin kastaba inuu meeshan madaxweyne ka noqdo hadii la buuxinayo macaaradku waa u diyaar inay ka soo qayb galaan laakiin meel aad leedahay ii xalaaleeya aniga boobaya anigana ku ridanaya ninkii ii xalaaleynayna waan sii samaystay taasi waxa weeye wax aan suuragal ahayn ummadda reer Djibouti waxaan u sheegaynaa ninkani isagun baa isku jawaabaya isagun baa iska hadlaya ninna uma ogola inuu la tartamo ninna uma ogola inuu raadiyo ka hadlo ninna uma ogola inuu jaraa'id ka soo wax ku qoro ninna uma ogola inuu intuu Djibouti yimaado uu la tartamo wuxuu doonayaa inuu loo xalaaleeyo uu sidii uu 10 sanadood amba 12 sanadood meesha ku xukumay sideedii si leeg inuu ku wado marka waxaan leenahay walaalayaal dadka reer Djibouti iskaga dheeraada ninkan waa inaad mudaharada lagu sameeyo ninkan waa in lagu sarakaco ninkan waa in la yiraahdo waqtigaagi uu dhamaaday iskaga tag annakay noqotay dadka dibadda jooga maalin dhow waxaanu diyaarinaa mudaharado ka dhici doona dibadaha oo ummadda u sheegaya inuu ninkani boobayo
inuu ninkanu doonayo mar saddexaad inuu xoog ku qabsado wadanka waanad mahadsantiin